waxaa maanta la bilaabay dhismaha wadada halbowlaha ee Boorame ee Bila Road taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay oo burbur baahsani ka muuqday waxaana hirgelinaya dawladda hoose ee degmada Boorame oo sheegay in lagu dhisayo cashuurtii laga qaaday bulshada Boorame maayir ku-xigeenka degmada Boorame ahna kusimaha maayirka degmada Boorame xogayaha dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo si wadajir ah u soo kormeeray bilowga dhismaha wadada halbowlaha Boorame ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan wadooyinka la dhisayo waxa weeye wadadaasi maanta aan sameynayna waa meeynkii wadadii Main Road kaayday magaalada Boorame dadweynaha waxaan leenahay waxaan idinka mahad celinaa sida fiicaneed cashuurtii hore u bixiseen inta aan bixinna waxaan leenahay iska soo bixiye cidaan anagu shaqeynaa bulshada dawladda oo shaqeynaa shacabka aan u shaqeyno iyaguna inay dadaalka nagula garab galaan waxa laga rabaa ilaalinta wadadu waa mas'uuliyad saaran qof walba oo reer Boorame bilicda iyo wadada wanaagsan in marana way siday dhibtu inoo wada taabatay intii yareeda xidhnayd ayay dheefteeduna inoo wada taabanaysa marka ilaalinteedu waa in mas'uuliyadda qaadno gaar ahaan cidda ku soo jeeda wadada bulshadu cashuurta haday bixiyaan annagana waxa naga ballana inta yareed bixiseen inaan idin hayno idin habayno sida wax qabadna idinku bedelo maanta ay tahay 5 Maarch 2022 waxa farxad noo ah inaanu joogno wadada halbowlaha magaalada Boorame oo sida la sheegay injineerada dadkii hore ay sheegaan ka bilaabmaysa Siciida Goojo ilaa iyo Hotel Sow kaasoo sida la sheegay laga maalgelinayo cashuurtii bulshada laga soo guray dadweynaha reer Boorame waxaan ugu bishaaraynayaa waxaan ka raali gelinayaa muddadii ay xidhnayd dadka qaar meherada badan ay lahaayeen suuqii baan naga waan maqnayn inaga maqnayn waan idin maqnayn waxaan idinku maqnayn ku raagnay inaan dhisno wado tayale oo berri toole aan iga daba imanine muddo badan jirta taas daraadeed raagitaanka taasa keenay marka waad ku raaxaysan doontaa wixii maanta ka dambeeya berriba waad mar hadii Ilaahay ka dhigo taasina waa bishaaro sidoo kale waxaan idin sheegayaa mashaariicdan maanta aan fulinayna waa mashaariicdii ka baaqatay sanadkii 2021 sidoo kale waxaan idinku bishaaraynayaa mashaariicdii aan ugu talagalnay 2022 waa iyaguna waa idin hadhayihiin sidoo kale waxaan idin sheegayaa mashaariicdan maanta aan fulinayna waa mashaariicdii ka baaqatay sanadkii 2021 sidoo kale waxaan idinku bishaaraynayaa mashaariicdii aan ugu talagalnay 2022 waa iyaguna waa idin hadhayihiin ku bishaaraysta iyagana idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad wadada ilaashataan wadada dawladda hoose ma laha maamulku ma laha dadweynaha idinka leh waxa la idinka rabaa idinkana inaad ilaashataan kiiba 9 ka wanaagsan tahay kuwii haray degmada looga sameeyay jiray maanta waxaynu halkan u joognaa dariiqii bartanka ee mainka ahaa ee Bila Road oo aynu maxay ahaydaan maanta aynu saarayno laami casriya oo maxay ahaydaan laamidii asfarka ahayd runtii bulshadiina soo dooratay waxaanu maxay ahaydaan aanu waxa weeyaan aad maanta arkaysaan wax qabadkii muddada koobneed aanu joognay iyad maanta arkaysaan dhalkiisii wadadii halbowlaha magaalada taas oo maxay ahaydaan ka soo bilaabmaysa maana guest house laba qaybood bay kala qaybsan tahay qayb waa 670 mitir qaybtaas waxaan dhignay carakaawo imika waxa ka socota shaqadii qaybtaas waxaan dhigaynaa imika maxaadana double layer surface oo ah asphalt overlay hot mix waliba waxa hadda isla maxaadana maanta socda laba wado oo wadada Dhamuug ee Beexaan ka beeraysa iyo wadada kale maxaadana Aadan Isaaq oo iyagana aan dhigayno maxaadana surface treatment qofku waxa wanaagsan qabtay waa la sheegaa dadweynaha reer Boorame waxaan u sheegaynaa wardad wanaagsan baad hesheene oo idin shaqeynayo aad niga shaqaysanayne la shaqeeya